واي سلام ولا لا سومالي ملبا جوتين أدبا ومهستين هذا وحا واي جنرال كان وجنرال كامرول بقى كلا سو حرير سومالي ويني جنرال كان جنرال وحا واي دوينها غاراي معناها dad badan waxa jira macnaha isha ku nool wadanka dacliisa ku nool dadkaasna waxa waay ilaa waxay joogan ilaa dadweynaha wadanka dacliisa joogan Soomaaliya ilaa ras casir ilaa ras gaboor ilaa adduunka dacliisa kala joogan ilaa Mareykanka ilaa meel bay joogan marka waxaan rabaa walaalaha Soomaaliyeed inaan gaarsiiyo general kan general official inuu yahay oo dadweynaha mataqaanaa dadka Soomaaliyeed kala soo xiriiraan haddana barnaamijka ugu dambeeyay oo wadanka ka socda waxa waaye ninka la yiraahdo mataqaanaa isha aan farmaajo iyo qayr oo hadda barnaamijkooda goosgoos u yahay aniga oo madaxweynaha mustaqbalka isku diyaarinayo Ahmed Cabdi Shakuur oo sanadkan la raba inuu banooniga mataqaanaa jeesta ku dhalayo meesha Sheekh Shariif oo hadda dagaal xoog leh ku jiro ninka la yiraahdo isha group badan oo macnaha isha madaxtinimada saranka raba inay qaadaan macnaha nin u joojinayo ma jirto wadankana waxa waa wadanka Soomaaliyeed waxa la rabaa in wadanka la dajiyo ninka soo Soomaaliyeed ku leeyahay anaa wax qabanayo marka ninka wax qabanayo Allah subhanahu wa ta'ala baa og haddana waxa waaye badii waxa ka dhacay barnaamij weyn anaga dawladda Kenya waa warsanay looyariinteeni macnaha isha Najib lawyer culus oo macnaha master degree oo jooga wadanka Ingiriiska ku nool iyo Najib la yiraahdo asagana master degree iyo barnaamijyo badan oo rag badan oo asxaabteeda macnaha isha wadanka wax ku bartay wallahi lan Kenya hadda waxa way badii aad iyo aad isku muransanahay macnaha baddaas inaan maartay isha badda nimankii hore oo macnaha lagu eedeynay inay badda ayagu gateen waxa soo baxday nimankaas badda inay sagadeen inay badda ayagu soo celiyeen soo baxday ninka la yiraahdo Sheekh Shariif iyo Ahmed Cabdi Shakuur بدي اللي ده way gateen anigu maanta waxa waa jaa wax walbaan ogaanay barnaamijyo badan aan ogaanay macnaha isha idaacadaha galnay meel walbaan galnay waxaan ogaanay nimankaas macnaha Soomaali weyn ay ku eedeysay badda inay gateen nimankaas badda ma gadan macnaheedu waxay tahay badda waxbay ku dareen nimankaas badda waxbay ku dareen in Cabdi Sharmaake iyo dhamaan dadkan leeyahay badda ay gateen badda waxba lagu daray nin kasta oo siyaasiyan wuxuu rabaa in uu ku eedeeyo ninkaanu badda u gatay marka waxa laga hadlaa waxay tahay Soomaali weynay anagu Soomaali hadaan wadooyinkeena isku galin ninkii mataqaana madaxtinimo qabsanayo si kale rahu yimaado dadka af Soomaaliga beenta oo Soomaalida loo sheegayo hal laga joojiyo anigu madaxweynaha mustaqbalka isku diyaarinaya horta markii laga hadlayna uu hadlayo malahan laakiin waxaan rabaa hadalka runtiisa inaan ku istaago Soomaali weynay aniga Soomaali aan ahay nin muwaadin aan ahay nin waxaan wadanka Ingiriiska wax ku bartay nin waxaan master degree oo macnaha ugu tala galay sanadkan inuu maartay isha sharciyada si fiican u bartay looyarnimo bartay Soomaaliya horta markii laga hadlayo aniga waxaan bartay looyarnimo bartay marka barnaamijka anagu wax kasta uu yahay waa soo ogaanay waxaan rabaa Soomaali weynay in systemkan macnaha badaha nin walba ninka kale inuu yiraahdo mataqaana isha anaa ka fiican anaa wadanka habeenayo wadanka Soomaaliya maanta wuxuu ku jira Ethiopia waqtiga waxay joogtaa hadda Soomaaliya ila wareeglayo macnaha dekada hobyo Ethiopia loo saxiixay dekada mataqaana isha dekada Kismaayo Ethiopia la siyaal rabaa macnaheedu waxay tahay nimankan meesha hadda joogo mar walba waxay isku dayaan dekadaheena in Ethiopia gacanta loo galiyo oo Ethiopia lira walaalaanahay annaga Ethiopia ganacsina nama dhaxmaraayo wax aan isku imaanayna ma jirto because waxa waaye annaga dad Soomaaliyeed aan nahay wadankana annaga iskale Soomaaliya iskale marka anaguna madaxweynaha mustaqbalka sanadka musharaxayna Soomaali weyn ogaada ninka soo support gareeyana waxa waaye waxaan ka codsanayaa inuu yiraahdo macnaha uu Twitterkayga ku soo qoro ama Facebookiga ama meel kasta uu heli karo sanadka musharaxana horta markii laga hadlo marka bismillaahir rahmaanir rahiim wabillahi tawfiiq walaalaha Soomaaliyeed سكرابنا هلا صار صاحب سكرابنا هلا صار نكستو أنا إجعل معنا مركو عركو هذا وقص لا مر والبو حنك شيء وحن جعله إنسان ما لبده عوينه مركز سياسيين ترى وحن قعد سنة إن أيوة مجال يسوقلين أو نول بها وح أصلا وحق له أوقاته نكسنا شعب كيسوح وكد يرسل هلا نكا وحلا قبل وحلا يا ملهن مركو بالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.